Kenya waa dal ay ku nool yihiin qabaa'ilo fara badan haddana ay ka jirto kala duwanaansho dhanka diimaha oo ballaaran iyadoo laga duulayo dhibaatadii dhawaantan ka dhalatay weerar bambaano oo loo geystay kaniisad ku taala magaalada Nairobi iyo ficilo aan wanaagsanayn oo ka soo baxay qaar ka mid ah dadka Kenyaanka ee haysta diinta Kristaanka ayaa waxa magaalada Nairobi lagu qabtay kulan lagu cambaaraynayay qaraxyadii ka dhacay Kenya oo dadka rayidka ay ku dhinteen qaar ka mid ah hogaamiyaasha diinta islaamka hogaamiyaasha kaniisadaha guddiga ganacsatada Islii iyo xubno ka tirsan dawladda Kenya ayaa goobjoog ka ahaa madasha kulanka lagu cambaaraynayay qaraxyada ka dhacay Kenya iyo baaqo aadan in Kenyaanka kala diimaha ay si wanaagsan u noolaadaan gudoomiyaha guddiga ganacsatada Islii Xaaji Xasan Guuleed ku-xigeenkiisa iyo Sheekh Maxamed Ibrahim Sheekh Shakuul oo ku hadlaya magaca culimada Soomaaliyeed ayaa ka dhawaajiyay inay si aad u cambaaraynayaan qaraxyadii dhawaantan ka dhacay kaniisad ku taala meel u dhow xaafadda Islii oo ah goobta ay Soomaalidu dalkan Kenya ugu badan tahay iyagoona sidoo kale ugu baaqay in dadka kala diimaha ee ku nool gudaha dalka Kenya ay qaab nabadgelyo u noolaadaan ganacsatada Islii wadaadada muslimka iyo pastorska kanisooyinka ah odayaal hooyooyinka gabdhaha iyo dhalinyarada waxaanu halka isugu nimid waxa weeye arrin khusaysa axadii hore aan soo dhaafnay qarax ka dhacay kaniisad ay dadkan Kenyaanka ay leeyihiin kaniisadaas oo ku taala Islii agteeda oo jaar la ah arrinta iyada ah arrin xun weeye waa ka xumaanay waxaan ugu xumaanayna waxa weeye waxay keenaysaa khilaaf badan waxay keenaysaa nacayb waxay keenaysaa dagaal aan loo joogin qaraxa meesha ka dhacay wiil yar baa ku dhintay 11na waa ku dhaawacmeen in waxna la yeero markay wax dhacaan laakiin maalinta waxa cadaatay in markay arrintan ay dhacday dadka aan muslimka oo kaniisada joogay ay dhirfeen dhirifkina ay la aadeen iyaguna masaajid la yiraahdo al-Amiin oo meesha u dhow waxa kale oo jira dhagax tuur baabuurta ay Soomaalida wadato iyo Soomaalida laftooda dariiqa socota dad wadaniinaanu nahay ka baryimayno cidna wadannimadayada dad wanaagsan baanu nahay shaqo kuma lihiin laakiin se waxaan leeyahay in la isku duubnaadaa maxay noqotay maalinta dhaweyd waxba yara bilaabmay laga yaabay inayba ahayn cidda la sheegiyaa ee qaraxa dhigtay laakiin markiiba maxaa la abaaray wax hantidii Soomaalidu lahayd gawaadhidii Soomaalidu lahaayeen Soomaalidii meesha maraysay marka anigu waxaan leeyahay hadalka badin maayee waar aynu digtoonaano diinteena islaamku ma ogola meelaha macaabidda ah ama wax lagu cibaadaysto in dhibaato loo geysto waxa kale oo diintu ogolayn dadka shacabka ah in dhibaato loo geysto diintu ma ogola diinteena ilaahay subxaanahu wa ta'ala markuu ka hadlayay wuxuu ku tilmaamay inay tahay rahmatan lil caalamiin nabiyullaahi muhammad waxa loo soo diray oo ma arsalnaaka illa rahmatan lil caalamiin naxariis inaad bani aadmiga u tahay caalamiinta waliba bani aadmiga ma aha caalamiinta dhan oo insiyo jinkaba leh inaad u tahay maxaan ku yiraahdaa naxariis baa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayuu u soo diray falalka noocan oo kala ee lala beegsanayo meelaha kaniisadaha ah waa falal aad u foolxun sidoo kale Fa Wilfred oo ah hogaamiye kaniisad ku taala xaafadda Islii iyo Reef Sami oo ka socday dawladda Kenya ayaa dhankoodana sheegay baahida loo qabo in guud ahaan shacabka Kenyaanku ay isku ixtiraamaan diimaha ay kala haystaan to show our solidarity as a community here in Islii we have lived here we have coexisted peacefully people of different faith we respect each other the understanding that has always been there with our people to continue, the respect that has been there among our into security, they will do their work so that our people can live in peace. And we want to join and team up together with the people in Islii and ask the residents in Islii to cool down, calm down, because the government is now coming to bring in the lasting solution. And we have confidence also in our government that the government has the machinery
to bring peace. sanad ka hor markii ciidamada Kenya ay u galeen gudaha dalka Soomaaliya si ay ula dagaalamaan xarakada al-shabaab ayaa waxa soo badanayay dareenka ay muujinayaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalkan Kenya iyadoona ciidamada ammaanka dawladda Kenya howlgallo badan ay sameeyeen siyaabo kala duwan dad Soomaaliyeed ugu qabtay xaafadda Islii laakiin kulankan ayaa waxa uu noqonayaa mid si weyn wax badan kaga bedeli doona dhibaatada ay Soomaalidu ku qabaan halkan Islii ee dalka Kenya Maxamed Cusmaan Xabiib Royal TV Nairobi